war qoraal ay soo saartay hay'adda sirdoonka qaranka dowladda Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay warqadda qoraalka ayaa sidan u qornayd waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin barbilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed loogu geystay magaalada Muqdisho 28 bishii Diseembar 2019 oo qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye baaritaanka socda si loo dhameystiro waxaan la kaashan doonaa hay'adaha sirdoonka ee caalamka dowladda Imaaraadka oo ka mid ah dowladaha Soomaaliya dhanka siyaasadda ma dhaafsan yihiin isla markaana dowladda Soomaaliya siyaasadda Imaaraadka dhanka Soomaaliya ka soo horjeesatay ayaa lagu eedeeyay qaraxa inuu fuliyay dhanka kale wargeysyada ka soo baxa dhanka dalka Turkiga ayaa sheegay inuu qaraxaasi ka dameeyay dalka isku tagga Imaaraadka Carabta balse wali dowladda Imaaraadka Carabtu kama aysan hadlin eedeyntan ay soo jeediyeen hay'adaha sirdoonka dowladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale qaybo ka mid ah wargeysyada caalamka ururka al-shabaab ayaa iska fogeeyay qaraxan isla markaana aan sheegan haba yaraatee iyadoo hore looga bartay ururka al-shabaab inuu weerarada iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho sidan oo kale loogu hubtay sheegan jireen balse maanta may sheegan qaraxii soo dhacay sanadkii 2017 bishii Oktoobar 14keedii iyo qaraxan dhacay 28 bisha Diseembar 2019 oo boqolaal shacab ay ku hubteen isla markaana qaybo kale ay dad badan ku dhinteen kuwa badan oo kale ay ku dhaawacmeen hanti badan iyo dhaqaale badan oo ku burburay dadkana ku reebay saameyn xoog leh ayaan gabi ahaanba ururka al-shabaab sheegan qaraxyadaas ayaa waxaa loo tiirinayaa dalka Imaaraadka isagoo hore loogu tiirinayay Imaaraadku inuu ka dameeyay qaraxii ka dhacay Soobe 14 kaas oo ahaa qaraxii ugu weyn marka laga hadlayo Geeska Afrika dowladda Soomaaliya ayaa waxay waday muddo 2 maalmood ugu dameeyay baaritaan xoog leh si loo soo afjaro qaraxan cidii ka dameysay hay'adaha sirdoonka ayaa maalmihii ugu dameeyay ku hawlanaa sidii loo ogaan lahaa cidii soo abaabushay cidii fulisay iyo meeshii laga soo abaabulay qaraxaasi qaraxan ayaa waxa ku dhintay dad tiradoodu dhantahay 79 ruux inkastoo mid kamid ah maanta ay dhaawacyadii 16 ee loo qaaday dalka Turkiga mid kamid ah geeriyooday taas oo ku noqon doonta tirada 80 kuwa kalena ay xaaladooda culus tahay dhanka kale waxa ku dhaawacmay tiradoodu kor u dhaafayso 140 iyo dheeraad waxaana sidoo kale lagu lawaayay 25 qof shaqaalaha xarunta gurmadka isku xilqaamay la socoshada dhibaatada dadka ku dhacday ay sheegeen in la helay 6 ruux oo kamid ah dadkaasi balse wali qaar kamid ah la laayahay hantida iyo waliba dhaqaalahan ku burburayna ma aha mid cadad iyo tiro leh hay'adda sirdoonka NISA ayaa waxay baaritaanka sheegtay inay si dhameystiri doonto iyadoona kaashan doonto wadanada caalamka sirdoonkooda qaybo kamid ah dalalka Mareykanka Turkiga iyo Qatar ayaa Soomaaliya waxay yihiin saaxiib dhow taas ayaa laga yaabaa inay dalalkaasi ka caawin doonaan sirdoonnimada Turkiga ayaa waxa kaga dhitay qaraxan muwaadiniin dhisay wadada isku xidha Afku iyo Muqdisho